fiid wanaagsan daawadayaal qodobada wararkeena ugu waaweyn caawaan idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo qiray inay culeys badan ay ku naqatay aqoonsigii maamulka Yahuudda Israa'iil sababta maxay tahay muuqaalkan ayaan rabaa in halkan ku la wadaago sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qorsheynaya inuu xilka ka tuuro ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Bare iyadoo madaxweynayaal hore arintaasi baaq ka jeediyeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la wado in ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Bare xilka looga qaado ayaan rabaa daawada in halkan ku la wadaago sidoo kale Soomaaliya ayaa soo iibsatay diyaaradda lagu magacaabo GF-17 oo la filayo in ay duqeymo kala duwan ay ka geysato shabeellooyinka iyo waliba sidoo kale maamulka Soomaaliland muuqaalkan ayaan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale waxa caawa halkan idin kula wadaagaya guutada 77 ee ciidamada xoogga dalka ayaa gacanta ku soo dhigay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka markii dambana u goostay dhanka kooxda Al-Shabaab ciidamada guutada 77 ayaana gacanta ku soo dhigeen halka laga soo qabtay waliba sidoo kale Muqdisho oo ugu dambeyn lagu soo dejiyay muuqaalkan ayaan saaxiib yaal idin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa fadlan rukumo channelkeena oo YouTube-keena soo subscribe garay muuqaalkana la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag mahadsanidin hagaag aynu ku bilaawno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan guutada 77 ayaa gacanta ku soo dhigay sarkaal hore uga tirsanaa kooxda ciidamada xoogga dalka iyo waliba sidoo kale Hirshabeelle oo ka tirsanaa markii dambana u wareegay kooxda Al-Shabaab ayaase gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada xoogga guutada 77 ayaana gacanta ku soo dhigeen iyadoona hadda loo soo wareejiyay gudaha caasimadda ee Muqdisho ciidamada xoogga dalka ee guutada 77 ee Shabeellaha Dhexe ayaa soo qabtay Muuse Delabey oo horey u ahaa kabtan Hirshabeelle ah waliba sidoo kale markii dambana uu wareegay kooxda Al-Shabaab ayaa markii dambe ay ciidamadu gacanta ay ku soo dhigeen oo hadda uu ku jiro ciidamada xoogga dalka gacantooda ciidanka daraawiishta Hirshabeelle ayuuna ka tirsanaa deegaanka Wargaadhi ayaa ciidamadu ay ku sugnaayeen ayaana howlgal ay qaadeen ayayna markaasi qabteen kabtanka ciidamada ka tirsan ee lagu magacaabo Muuse oo markaa isna ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab uu markii dambe u wareegay sarkaalkan ay soo bandhigeen guutada 77 oo ay hadda ciidamadu ay ka soo dejiyeen gudaha caasimadda shirir jaraa'id oo ay horey u qabatay kooxda Al-Shabaab ayuu ninkan ka soo muuqday isagoo oo markaa Al-Shabaab uu ka tirsanaa shirirka jaraa'id goobaha uu markaa ka soo muuqday waxa kamid ahayd Aadan Yabaal Runirgood Nuur Duqle علي قدود دار النمعة البعاد على الكوثر علي أحمد يوم يلك لو كتر سنة قبل كشوبة لا دحي وحنا لقصه قبتي أجا نور دوغلي موقع ومركز مقدشة أيانا لقصه دجيي يسقونا كسو مقندونا محكمة داوود دولة مركز يسقى ودبان وكسو مقندونا sidoo kale wararkeena sida aad hordhacaad ku soo daawateen ba dawladda Soomaaliya ayaa soo iibsatay diyaaradda nooceeda FG-17 oo kamid ah diyaaradaha sida weyn ee markaa ugu wanaagsan qaybta dagaalka ayayna ciidamada dawladdu ay markaasi la soo wareegtay dawladda isu taga markaasi waan raadi dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiga ayaana markaasi dawladda Soomaaliya waxa ay u iibinaysaa diyaarad lagu magacaabo nooceeda FG-17 kadib markii boqortooyada Sacuudi Carabiga ay markaasi wargelisay in ay soo gudbisay codsiyo xiriir ah oo ay markaasi ay Riyadh soo gaarsiiyeen dawladda Soomaaliya Sacuudiga ayaana la sheegay in uu aqbalay qorshaha ay iyadu markaasi dawladda Soomaaliya ay doonayso in ay markaa uga gaddo diyaaradda nooceeda lagu magacaabo FG oo kamid ah diyaaradaha nooca dagaalkan diyaaradan ayaana lagu sameeyay dalka Pakistan kadib markii waxtarkeeda la arkay dagaalkii Pakistan iyo India dhaxmaray Pakistan ayaana diyaarada nooc markaasi khatar ah ay sameeyeen balse dawladda Sacuudiga ayaa sidoo kale qayb lixaad ka qaadanaya tan iyo markii dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka ay ka ciirisay dalka in ay gacan saar ay la leeyihiin xulufo uu hogaaminayo Turkiga iyo waliba sidoo kale Sacuudiga iyo waliba sidoo kale xulufooyin kale ayaana si weyn u garab taagan Soomaaliya marka la eego dawladda Sacuudiga ayaana markaasi quldareynaysa in diyaarada intaan ka badana ay markaasi u soo iibiso dawladda Soomaaliya qiimahan diyaaradan GF-17 waxa markaasi halkeedii xabbe ay u dhaxaysa lacag gaarayso 25 milyan ilaa 30 milyan oo dollar
oo ay markaasi ka mid tahay diyaaradaha nooca ku wanaagsan duqeynta iyo weliba sidoo kale dagaalada marka loo eego Soomaaliya waxa ay markaasi diyaaradahan ugu hirgeliyeen markii loo eego qorshaha African dalalka Nigeria awoodeeda GF-17 waxa ay markaasi dunidu ay ku aragtay intii uu socday dagaalkii dhaxmaray Pakistan iyo waliba sidoo kale India waana tan keentay in dalabaad badan ay diyaaradan hesho tan iyo xilligaasi waxa ay diyaaradan noqotay mid ka mid ah diyaaradaha ugu badan ee la iibsanayo iyadoona dawladda Soomaaliya ay markan noqonayso in markeedii ay hesho diyaarada dagaal ee noocan oo kala dhankale madaxweynaha maamulka Somaliland Abdiraxmaan Ciro ayaana markaasi walaa xoogan waxa uu ka muujiyay aqoonsigii maamulka Yahuudda ee Israa'iil tan iyo markii ay aqoonsatay maamulka Israa'iil madaxweynaha maamulka Somaliland waxa uu qiray in culeysyo badan ay soo food saartay tan iyo aqoonsiga maamulka Yahuudda madaxweynaha Abdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in dabcan tani ay tahay culeys badan oo ay dareemayaan maadaama ay dalal badan oo Carabta iyo Afrika ay qayb ka yihiinba ay markaasi ay noqdeen kuwa inta badan ka soo horjeesta Abdiraxmaan Ciro oo sheegay in dalalka Carabta iyo Afrika ay markii horeba si gaar ah ula markaasi tacaali jireen dib u eegista markaasi duruufaha iyo waliba sidoo kale wixii ka dhacay maamulka Somaliland ayaa tan iyo markii ay 30 sano wax ka badan ay raadinayeen aqoonsi ka dhanna Soomaaliya inteeda kale ay ka go'aan balse dawlado badan oo ay fariin la wadaageen ayaase Yahuuddu ugu soo jawaabtay waxa uu asiga laftigiisa uu qiray Abdiraxmaan Ciro in Yahuuddu laftigeeda ay u baahneed in aqoonsi yeesho iyo inagoo aqoonsi raadinayno ayaana markaasi aqoonsanay ayuuna ku sheegay wareysi kooban oo 30 daqiiqo soconaya la yeeshay madaxweynaha maamulka Somaliland Abdiraxmaan Ciro isagoona sidoo kale uu ka dhawaajiyay in dib u eegis lagu sameeyo dhibaatadii ka dhacday 30 sano ka hor Somaliland iyadoo taa oo loola jeedo oo markaa taa oo la jeedo in duqeymihii waliba sidoo kale dhibaatadii hore u dhacday inkastoo Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ay ka garawday arinkaas ayaa hadana Somaliland waxay mararka qaar ay marmarsiyo ka dhiganayaan in ay diyaaradahaasi ay dhibaato u geysteen iyadoona sheegeen in laga xasuuqay shacab iyo waliba sidoo kale ciidan Abdiraxmaan Ciro oo markaasi muuqaalka ama 30 daqiiqo soconaya ayuu yiri waa dareemaynaa diidmada dalalka Carabta Afrika iyo kuwa kale oo diidaya aqoonsiga Israa'iil ee dabcan labadeena midba midka uu u baahnaa uuna u aqoonsado waxaana jeclaan lahaa inay dib u eegaan taariikhda Somaliland ee wixii ka dhacay sidaas ayuuna yiri Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro madaxweynaha maamulka goboleedka Waqooyi Galbeed ee Somaliland su'aashiis weydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maamulka Somaliland ilaa intee ay raadin doonaan aqoonsi ka dhana اعترافك أي كرادينيان دولة الصومالية أنت ذكرها إني كجوان وقدام بنتنا داود يال دولة الصومالية وهو جامية مدحويني حسن شيخ محمود يا قرشانية إنه حلك مدحتنما دلك رئيس الوزراء وكتورو رئيس الوزراء حمزة عبد برئ يضع مركزي وقتي كالجور كالجاري رئيس الوزراء هذا تلاها حمزة عبد برئ ayaa kamid ah ra'iisul wasaarayaasha ugu waqtiga dheer ee dalkan soo maray iyadoona uu ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda dhexe waa dawladii hadda tan ka horeysay ee madaxweyne Farmaajo ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa oo majrahayo inkasto dawladdan wax ka yar bilooyin ay markaa ay u harsan tahay haddana waxa ay markaasi ay naqanaysaa ama markaasi qorshaha uu sansaanta socota ayaa muujinaysa in dawladda Soomaaliya ay daneynayso sidii ay xilka uga tuuri lahayd ra'iisul wasaaraha hadda talada haya madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Hirshabelle Ali waa markaasi Ali Cabdullaahi Cusuble oo qoraal soo saaray ayaana ka falceliyay dhaqdhaqaaq oo ay markaasi mucaaradka markaasi mucaaradka oo si gaar ah ugu diidan qorshaha uu sheegeen in ay doonayaan in laga bedelo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Bare Ali Cusuble ayaana shaaca ka qaaday in arintan ay markaasi ay tahay mid halis ku ah in ay Xasan Sheekh Maxamuud ay go'aankaasi u qaatan ay tahay mid aad u adag ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Bare ayaa kamid ahaa
ra-iisul wasaarihii uu la kowsaday xukuumadda haddi jirta haddana waxaa jirto warar hoose aan helayno ay sheegayaan in ay dowladdu ay qorsheynayso inay xilka ka qaado ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waqtiyadan oo kale markii ay soo gaarto xaaladda siyaasadda ayaa naqataa mid markaasi lagu kala aragti duwanaado iyadoona halkan lasoo saaro dad kale oo markaa iyagu ay wadada laga sii dhigto xilli dowladda Soomaaliya ay daneynayso in ay dalka mar kale ay dib u hogaamiyaan haddii shacbiga ay doortaan balse ra-iisul wasaaraha ayaan loogeen halka uu ku dambeyn doono xalkiisa balse madaxweyne hore Cali Cusuble ayaanu ku baaqay in Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha hadda aan maqlayno inuusan markaasi uusan ku degdegin oo xilka uusan ka tuurin ra-iisul wasaaraha mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbaday in xilka laga tuuro balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in midkood uu sameeyo inuu go'aankiisa uu ku taagnaado ama inuu markaasi xilka uu ka qaado ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare daawada adigaan maxay kula tahay qaybta hoose faaladana aragtidaada noogu reeb haddii aad halkan nala soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-kayga soo subscribe gariso sidoo kalena muuqaalka la garaysiin share garay saaxiibada la wadaago ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan meesaniin